maamulka gobolka iyo ka degmada Gabiley ayaa saaka subaxnimadii hore u aanba baxay xadhigga jarrada mashaariic kala duwan oo laga hirgeliyay deegaanada galbeed iyo waqooyiga Gabiley. Maamulka gobolka ayaa intii ayna ka aanba bixin gobolka Gabiley ayaa saaka waxa ay xadhigga ka jareen 2 qol oo lagu kordhiyay xanaanada hooyada iyo dhallaanka ee xaafadda New Gabiley. Waxa ayna ka mahadnaqay isku duwaha wasaaradda caafimaadka Gabiley iyo maamulka xanaanada ee New Gabiley. Inta halkan waxaan u joognaa inaan 2 qol ee dhalmada oo qayb way ka qaadatay gudoomiyaha degmadu MCH-kii shaqadiisii korba u kacday marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maayarka degmada. waad ku mahadsantahay gudoomiye sida sharafta leh ee bulshadaada u garab taagan tahay ee aad noo adeecday ee aad noogu dhistay 2 maqsin. xadhigga jarradaasi kadib maamulka gobolka iyo ka degmada ayaa waxa si wada jira u guda galeen xadhigga jarrada kala duwan dugsiyo laga hirgeliyay deegaanka Laaca iyo Isha Gudban waxaana ku helinayay maamulka gobolka iyo ka degmada xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabiley iyo isku duwaha wasaaradda waxbarashada gobolka Gabiley waxaana hadaladoodii kamid ahaa oo ah kuwii u horeeyay deegaanka Laac yeelan doonto waxa noogu xiga deegaankan aynu joogno iskuulkan aynu hadda xadhigga ka jarnay oo waa Ishii Gudbaneyd. waxaynu soo furnay 3 mashruuc oo runtii aad u qiimo badan oo ah mashaariicdii ay dawladda hoose ee Gabiley taasoo lagu horumarinayay baahiyaha asaasiga ah ee waxbarashada iyo caafimaadku ay hormood u yihiin. runtii baahida markii la dirsay oo ay golaha deegaanka oo maayarka horkacay ugu darseen qorshaha miisaaniyadda 2018 ku dareen tiina waa la fuliyay maantana waan soo furnay. waxani waxa idinaga caawisay maaha ayada inagama caawin cid kalena inagama caawin waa dawladda hoose ee Gabiley jawanka yar ee dadka caanaleyda ay ka qaaday Gabiley gudaheega intii baan ka idiga fulinay. waxa weeyaan hambalyo iyo bogaadin iyo mahadnaqba u direynaa ka waxbarasho ahaan deegaanka Gabiley waxyaabaha asaasiga ah nolosha bini'aadamka dhammaan gobolka ka wada haday caafimaad tahay haday waxbarasho tahay iyo haday biyo tahayba. muddo badan aad u umaleydeen sida gurigaas uu dhameystirmi lahaa maanta waa la gaarin natiijadiisii iyo dhameystirkiisii cidda laga rabaa magarasa inay ilaashadaan. kuulka la idin dhisay dad baa laga soo qaaday lacagtooda oo cashuurtii la qaaday sidoo sheegayeen gudoomiyuhu dadka 500 shil laga qaaday. sidoo kale waxa dhankooda iyaguna ka mahadnaqay odayaasha waxkaradka deegaanka Laaca iyo Isha Gudban oo mahadnaq iyo hambalyo ballaaran u soo jeediyay maayarka magaalada Gabiley iyo sidoo kale barasaabka Gabiley waxaana yiraahdeen weyn dadka reer Gabiley barwaaqaysan ee quruxda iyo magaalada wanaaga ku jiray mar hore magaalada nasiib u helay hadii aanu soo gaarnay annaguna aad baanu idigu mahadnaqaynaa ilaahayna ugu mahadnaqaynaa. maanta 2 fasal ee Laaca ee xamaaragteen xadhigga laga jarayo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay aadna waan idin soo dhawaynaynaa. waa Khalid Maxamed Tahir telefishinka caalamiga STN gobolka Gabiley.